السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي قروح بدكم سؤال هذا فيديو عصب وقالك إلى جري إيشر جري سؤال هذا فيديو إن شاء الله جمعة ذاني سمية بقول كونش صومالي يا ميقين نوجوسا أو هدي نص كيلا ربع بل إلى صوجدا إلى أجادا قيمها يا waddankeena maasha allah tabaaraka raxmaan nimca fadhido tintaada salka hoose haddii ay ka xanuunsada ama qolfo ama nabro ama agool ku dhibay tintaada si fudud insha allah kareenka ku qoynaya haddii tintaada qalalan tahay iyo face wash dadka loogu talagalay saliidda leh nabraha intaba insha allah xarunta waa ka heleysaan saliid taysiirna qiimo dhimisaa niila geliyey kor xanuun iyo adi waa isdeyseen ilmahaaga muhiim u yahay sirna nutrition na u isticmaashid tintaada haddii ay daadaneysana muddo yar ya ku jooji maaskiga samsam isticmaal sirna nutrition maxay ka caawineysaa ilmahaaga miisaankooda inay kordhiso si caafimaad waa cunno isku dheelitiran waxaa isticmaali karo qof walba jecel jirkiisa nafaqo soo dhawaada saaka waxaan wataa 100,000 shilin Soomaali baalweyn baa wataa wixii suuq iga soo goys hilibaa rabaa wax qudaarta dhan way ii taalaa hilib iyo moos le rabaa laakiin hilibaa rabaa inaan kusoo gado 100,000 kun maamada hilibka ka iibsada u tagay ayadoo hilibka gabaabsi uu ka yahay ya maasha allah tabar maalinta jimcada ku dhaha hooyada halka neef qali jirta xataa 5 neef 6 neef qalaysaa maasha allah tabaaraka raxmaan maamada 2 neef maanta qashaa ku dhahay waxna uma oolin maasha allah tabaaraka kastabar fiican ay leedahay haddii gacantaada fiicantaa dadka dhan way jeceliye marka waxaan dhahaa hawar ubaxay waxaan wataa maanta ana 100,000 kun maxay ii goysaa waxay tiri habar nus kiilo hilib ari bay kuu goysaa laakiin lacag waa inaa ku dartaa 7,000 shilin Soomaali iigu dar 7,000 waa 25 sent iigu dar nus kiilo hilib baa ku siisanaya maama macaan diyaar baan dhahaa laakiin 100 baa rabaan dhahaa habar macaan 100 inaa wax ku dar leemay noqonaysaa 100 wax iima goysamiya marka lacagteena baa qiimo ma wala halka door meel qal sarifooyo ma taqaaniin 30,000 haddii la 8 lagu sarif jiray abay macaan meelaha sarifka tag 28 ma jirto 30,000 baa halka door la sarifooyo lacagteena qiimo male ya lacagteena qiimo inay leedahay qurux badan lacagteena kor ha loo qaado shilin Soomaaliga maxay tahay shilin Soomaaliga halka door 30,000 u dhigmaayo maya 26 28 27 ahaa jiray waa la yaabanahay dadku waxaan leeyahay Soomaaliga maxay ugu cararaan dad qof kasta u tagto wuxuu leeyahay ma EFC iga dhigtid lacagteena baab laga tagabo ya afaarahana waxa waa ku afaari ilmo koriska jirkaaga de ilmahaaga qalalayeen mar walba qufacaan afaaraas ku ogaa suuq jimcaan tag idama soo arkin ma laga yeelay ma waxa soo arkaa ku dhahay neef ido kala arge bari gabdho badan ku wareersana arkay baridaas maasha Allah way fiicneed kiilada waa weydii 13 oo dhahay kiilada ku saaray madaxaasna $6 ya korkaaga haduu qalan yahay mar walba iskiin qaleel aad tahay maraqa madaxa isku ogaada hablo ya nafaqo waaya kuna nafaqo qaab macaan badan oo hada wiligaad cabi doontid insha Allah waa soo galna horena soo galna oo maleynaya YouTube-ka waa soo galinaa sida ugu macaan ugu quruxda badan insha Allah loo diyaarsado halkan waxaan ku akhrinayaa commentadiina quruxda badan videoga insha Allah like far badan saar baayada waxay dhahday ilmaha si caam inta lagaaga saxiix lagaaga ogolaanayo ilmaha sokorta gadaa timirta malabka xabasuudada iyo wixii la madasii maasha Allah tabaarakana waa baayadii ilmaheeda qalinka ahaa laakiin saxiixa aabihiis oo u diiday marka taladaasi abaayo soo siisay waa ka mahadcelinaya waxaan ku sii darayaa inay siiso waxyaabaha vitamin C ga difaaca jirka kor u qaada caabuqyadan uu yareeyaa abaayadan kale commentigeedu waxay dhahdeen xabad rashaadka aniga gaas saa'idan ku qabaa ay dhahdeen xabasuudadana xasaasiyadan ku abaaya halkeen awlaad ma dhalin ilaahay awlaad khayr qabto baariyaal abaay Allah ku sii waa ku soo duceynayna abaayan insha Allah si niyada ugu soo duceeya waxyaabo xabashaad iyo xabasuuda ku bedelan kartid waa xulbada iyo dhageera qaab loo diyaarsadaa jiro lambarkay qaybta commentiga ku soo dhigaya abaay macaan ila soo xiriir waxyaabo far badan insha Allah waa ku sheegi doonaa waana mahadsantaa abaayo awlaad khayr qabto saalixiin inta haysan Allah siiyo inteen haysatana Allah noo barakeeyo Allahumma baarik waana mahadsantaa abaay macaan abaayadan kalena waxay dhahdeen mahadsanid qaaliyay wax badan ka faa'iidnay lambarka ganacsiga qaybta tinta qolka la hela lambarkiisa isi aan kala soo xiriirey abaay macaan diyaar waa qaybta commentiga insha Allah ku soo dhigi doonaa mar walbana lambarka dukaanka markaan soo galiyo alaabihiisa waxaan soo galiyaa shaashada insha Allah abaayadan kalena waxay ii soo qortay comment kal ilaab maasha Allah Allahumma baarik maxamed faatix kabaran ay dhahday soo noqday dhamaan inta hooyo
ubadka ka xanuunsan Allah u caafiyo inta aan guursan guur kheyr qabo Allah siiyo runtii Allah ku barakeeyo sida wacan aan noogu faa'iideyso cunooyinka ilmaha noo soo baday haye qaaliyo ma santahay bibi Fatina alxamdulillah wuu iiga booday had sheeka dheer waaye sidoo iigu roonaaday iyo waxyaabo u sameeyay hadii aragtid fadhiya insha Allah video aan iga soo sameyn doona biidlaahi kariim abaayadan kalena talo waxay dhiibeysaa oo sharoobada video sharoobada ka soo dhiibtay waxay aniga liin dhanaan malab xabasoodo ifar iisuul qusul hindi intaas waxay isku daraa wanyeer balaas ilmaha sanadka weyn la siin karaa cabitaan ahaan waxyaro sanjabiil aheed asoo diirana siyaa idhaahdo shukran qaali jazakallahu khairan waligay sharoobo ma siinin intaan alla igu asturo alxamdulillah maasha Allah tabaaraka abaayada marka intaas isticmaashaa ka faa'iideyso wax sharooban waligay ilmaha u isticmaalna maasha Allah muhiim ah tahay wixii aad ku shaqeeyay inaad nala soo wadaagto sida hooyooyinka ugu sii gudbiyo tiyaano kale marka ay soo qortaan qiira dareemaya abaayada waxay dhahday maasha Allah sida aad wax faa'iido leh noogu soo gudbiso mar walba aad baan uga helay wallahi meeshan email ka dheer ayaad u qalantaa abaayo وانا قاريسة إن شاء الله وما حسنت أبا ساسا بكو قاري جساك الله خيرا كومنتيان كالبال إلى آخرية وحيد هذا ما شاء الله اللهم بارك أباي معان إنتان إيكابدان آيات أقلنتا قبدا صدن إنتين نغسو جيسو أفرتن جي هلا قارس أن كتورنا بريس عدها دالكينا مياه سؤال شيدنا كذلك وسو قرتي ما شاء الله تبارك الرحمن هاد قديب جنك لواتن كون لكن أنيقا وحا آمسانا أبو إنا أفرتن كون جوسا ساب آمسانا وما سنتين يا أبا أيضا وحيد هذا أفرتن كون هلا قارسيو يا ومخليسيمو لا تيكو كنا إلى هذا وحا كدي منتا وحير هلا قارسيو هبلي قرط دوان ما سنتين أبا أيضا كان وحيد هذا ما شاء الله شكرا أبا يبعان نوسو قلي حبة الرشاد كمكان كسيد الله نظيفيو فيديو قروح بدنا كسو سمي لك فيديو رولك باكو قراعدنا ولا المعان وحيابان دبيعيقا يا لايك قال لغو يري فيديو اسمحان دعاي فيديو اقل ما اهين ما لايك فربادن لسار بل ايسو شيغا ايضان كالنا وحي داهدي ابايو نوسو قل اسكو ديارينتا دالمادا تان لو عنو ما شاء الله تبارك الرحمن فيديو قروح باني قسو سمي يا لايك فربادن سار ان شاء الله فيديو غاس ابايدان كالنا كومنتي كيدو وحي داهدي ما شاء الله ولا شي قروح بدني شكرا حبيبتي جيركا ayaa xanuunay saaid jirka muruqyada xanuun macaani Allah abaay macaan wiliga inta sada isku aragtid ogow nafaqadaada jirka way yaraatay yaa muruq xanuun ila fagaraac hada aragtid jirkaaga nafaqada ku yar maxaa u baahan tahay cunno isku dheelitiran inaad isticmaashid hooyo xaamil hadaada ama hooyo nuujin ku jirtana mar nafaqa u baahan tahay abaayada marka ayada noogu soo noqoto waxay leedahay abaayo وانا نوجيا لكن جيركا حنونا سائدا دريما ابا جميعسي سمee socod muhiim ku yahay biyo fara badan cab cunno isku dheelitircun qudaarta cagaaran sida malaayga hilbaha maraqay sameeyso muhiim ku yahay cabitaanka xulbada iyo xabad rashaadkan hada inta isticmaashadaan ku dhahay adeegay lafa xanuun lafa garaac waa kareysan doontaa waan iisoo duceyn doontaa mar walbana cunno isku dheelitiran isticmaal qaaliye supplementida vitaminiskan hadii aa helayso soo iibso muhiim ku yahay ma sha Allah tawsida calcium ko kale waxaan ka helaysaa caano fara badan inay cabtid abaayadan waxay dhahday sharoobada inta abaso talaajid magalin karaa 3 cunug intee ku filan abaayo sharoobadan waxa fiican markaas diyaar iyadoo fresh ilmaha siisatid waxa loo baahan iyadoo qantac ina ilmaha siisid oo qantac meel dheer ah looma baahna wax qabow ilmaha ina siisid fridge uma baahno wax fududna waa biyo soo kululeysan liintii malabka ku darsan wax iisi waa ilmahana inta ay yihiin ku xirantaan garaamka ilmaha hadii ay weeyihiin bakeer intuu sameystaa oo wada qaybsan kartaa abaayadan kalena waxay dhahday gooryaanka abaayo haday qabto loos mala siin karaa looska waa la isticmaali karaa ya isticmaali karin dadka xasaasiyada ku qabo inta kale way isticmaali karaa laakiin ilmaha yar hadii ay qabaan abaayo bahal si bumpkin sida miraha bocorka وانا ما سنتا أباي معان إن شاء الله فيديو قروح بيكسوس سيدا بهالك لوغو علاجيو أبايدان كان ولال كان وحوده هاي بيشي ميقا كوفيلا نولش هذا نولشا وحي كسوغلو إباهي داد وإني اسكو حرنتينا فانتينا رجينايا هذا يكون دور إسوغشو مينيس ماكون كاس إنا ودا استعماله إن شاء الله نولش هذا وحي كسوغلو إني اسكو بيسكريستا لو باهي هاي abaayadan waxay dhahday abaayo taleefan miyaad wax ku duubtaa mise kaamiro youtube sida wax loo galiyo oo lacagta lagala baxo maadna bartid ee dhahday
abaa sheeka dheer waa dad badanaa kasoo hadla si lacag loogu baxsado sida editingka waxaasoo dhan youtube-ka geli waa helaysaa haddii aa u baahan tahay inaa anig kaaga soo hadlan insha allah sida ugu fudud oo wax loo fahmi karo video fadhiyaan soo fadhiisanaa qaababka ugu fudud iyo qaabka processka loo maro marka lacag laga sameyna waa nii soo sharxaya insha allah muuqaalkan like fara badan saara insha allah abaayadanna waxay dhahday maasha allah allahuma baarik qaali miskiin uroonaa tahay alla miskiin uroon inaan ahadle jah miskiin uroonaa tahay la dhaha maasha allah tabaaraka raxmaan sababtaasna waxay tahay waxyaabaha basiga muhiimka noo aha mar walba ka hadlaa sababtaasna waxay tahay hooyo walbo waxay u baahan tahay basic inay iska saxdo yaa ma aha hooyada inay mar walbo leefarkeeda uu yahay inay kusoo gudbiso social media waa inaa ogtahay leefarka aad ku jirto leefarka hooseeya inuu jiro leefarka sareyna inuu jiro mar walbo bulshada way isku dhex jirtaa halkaas waxaa kusoo diyaarsaday maraqii yaa boqolkii baalweynka halaasoo iisoo gooyay hilibka abaayadana waxay dhahdaa abaayo timir iyo waxay dhahdaa shanfaxda markaa isku daro kadib maan shiidaa maya koowaa fanshax soo shiidane yaa dhexda ugu shubanee timirta ayadoo shiidanaa cuneysaa gadaal kama soo shiida daartan juus aan waa ka dhigan kartaa wax dhib male laakiin sida anin kusoo gudbiyo juus ma ahayn caadiya loo isticmaalaye fanshaxda waa soo shiida waa ku shubanee waa cuneysaa haddaa rabtin cabitaan waa ka dhigan kartaa burka qamadi miyaa burka abaayo aan iisoo gudbiyey waa bur caadi ee qamadi ma aha ani burka qamadiga ama burka dalaga guriga ku diyaarsadaa burkaas laakiin waxaa ugu talagalay baankeegi malaw xokan inaa ilmaha ugu sameysto qaasatan ilmaha xasaasiyada qabo burkaas cad mar walba in la iska yareeyaa fiican 5 kiilo bisaa soo iibsaday waxaa booska isku bedelan kartaa sida bariis cadka bataati macaanka baradhada baankeeg wax walba way noqonaya anigoo ka sameynaya youtube-ka wuu ku jiraa wuu ka buuxaa haddana insha allah waa nii soo gelinaya waxyaabaha ilmaha xasaasiyada u fiican wiilkayga yar maanta wixii ka haysa oo jimcaha jibsi waxa ahayn ima soo maro dhahay jibsi baradho saliid ku shiilan goorme iigu dambeysay 2025 iyadoo gabagabada abaa taaba dab inta saar saliid cadee ka buuxis ma baradho ku shiilataa bilis abaa iska dhaaf baradhada haddii aa ka maarmin oo inaashiis ee taxta saliid caafimaad ku shiil saliid yarna ku shiilo haddii air fry ku yaalo ama aa helaysid weelkan ani aan isticmaalayo maasha allah waxaa uga maarmaysaa saliid fara badan inaad isticmaashid waxir saliid iyo cusbo iyo spice wixii ay heli kartaa kusoo bilbila waa isku soo qasay ayadoo kululaa gelinaysaa maasha allah tabaaraka raxmaan ay fraygiga aniga 30 daqiiqo saacadiisa ugu weyn markuu daba mar labaad haddana shiday ilaa ay kaaga bislaato waa shidanaysaa haddaa guduud rabtid ilaa guduud ay ka noqoto haddaa biseel rabtid ilaa biseel ay kaaga noqoto ay fraygana waxaa waay korbisoo dabka leh hoos dabka malaa gabdho badanaa ku dhiban inaa fahanteen aan rajeynaya waa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu